Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan baranaynaa sida Maxi looga tiri gareeyo iyo Kono sida looga iibsado oo taasaan baranaynaa maanta. Haddii mataqaanaa muuqaalka daawasho wacan. Asalaamu calaykum. Asalka tiriga iyo investor-ga Maxamed Akadeemi casharka kooban 10 daqiiqo. Laba far ee u dhexeeya Maxi ganacsi iyo iibinta hantida crypto forex ama maadaama xagga gudaheeda hadafku waa in faa'iido maalinle ah ama toddobaadle ah. Investor-ga maalgashi waa in lacagtaada la geliyo hanti muddo dheer ah oo aan sanado. Hadafku waa inuu labo suuqa la kala iibsado marketka cryptocurrency sida Bitcoin iyo Ethereum. Forex isku beddelka lacagaha qalaad ee Euro USD suuqa saamiyada shirkadaha labada hab ee shaqeeyaan isagoo technical analysis-ka waa sida ay ay shaqeeyaan fundamental analysis sida looga wareysiyo dhaqaalaha mashruuca cusub iyo xaaladaha ama maareynta khataraha risk management kasta guuleysta wuxuu ah heerka stop loss in aad nidaamka u sheegto inuu iibka joojiyo haddii aad qiimuhu hoos u dhaco oo si aadan lacagtaada oo dhan ay u weynin. Take profit inaad ganacsato una xawato inaad ka hor inta aadan gelin trade-ka ha gelin wixii ka badan weligaa aadan kali karin khasaaraha riskiga capital action sida u bilaabi kartaa baro wax gelin lacag dhab ah adigoon ogoon lahayn platformku furo account Binance ama TradingView ama demo account ka hor ku tijaabi waa inaad meelaha soo raaca aad tijaabiso maaha isaga ma aha. Aqoontu waa furaha guusha oo suuqyada caalamiga ah. La soco Maxamed Academy casharo fudud oo warar degdeg ah iyo trade haddii aad rabto inaad sugan oo aad aragtid oo aad la socotid waa muhiim inaad mataqaanaa warar ku xirnaatid telegramada ama x Twitter-ka ama YouTube-ka la socotid ma aha mataqaanaa haddii inta badan xogta waxaa laga helaa x Twitter trade inta laga helaa ma taalo Facebook iyo TikTok warar sax ah laguma helo. Laakiin haddii aad financial market tahay waxaa muhiim ah inaad x Twitter ama u wareegto meelaha u wareegto oo xogta dhammaan meesha inta badan halkaas laga helaa xogta fiican iyo wararka sugan waa inaad la socotaa maadaama aad coin gadatay coin-kii uu kula soo daatay oo akoonka ku haystaa ma ogid inuu war ka soo baxay. Laakiin muhiim waaye haddii mataqaanaa x Twitter aad leedahay oo aad follow gareysid waa la soconaysaa wixii dhaqdhaqaaq isaga sameeya waa la soconaysaa. Tan kale waxaan kugu daraynaa maanta suuqa sii yahay down waaye halkan waa laakiin waa future waaye wax waran short haddii mataqaanaa tana sida wareeg waaye suuqa long war oo Bitcoin maanta ama short u galaysaa labada midka aad rabtid oo meesha ku laabanaysaa volume waxa aaday irku aaday leverage ahaan haddaad rabtid mataqaanaa aad rabtid 20x 5x sida mataqaanaa loo gato sida loo maalgashado sida loo habeeyo sida coin laakiin tusaale ahaan haddii adiga bilow tahay kuwa fiican iyo kuwa mataqaanaa aan la iska ilaaliyo iyo caadi waaye waa kugu fiican website dhammaan laga eego haddii aad rabtid mataqaanaa Maxamed Academy wax ku diyaarisay casharo oo course oo free ah oo aad mataqaanaa ka daawan karto meel walba YouTube-ka Maxamed Academy aan soo dhignaa maalin walba la soco halkaas subscribe saar like saar si aad ula socotid muuqaaladana iyo casharada aan soo sameeyo mid kale Telegram-ka haddaad rabtid waa ku jiri kartaa soo dhawaad XRP maanta waxaa maraysaa 89 xaalad warar iyo dhibic maanta suuqa down waaye haddii mataqaanaa sanad badan oo aad mataqaanaa
ku iibinaysa inuu hadda suuqa 25 uu joogay adiga all time high bitcoin 125 laga soo celinayay maanta waa Janus hadda mataqaana coinkii aad sugaysay oo discount sameeyay gasho oo full hadhow markuu kor u kaco ka deg hadda tusaale 2025 24 bitcoin horta dalaa meesha koray waa la soo daatay marka xawalwelin suuqa dhamaan mataqaana hadda anaga khasaare dhamaan waa ku jirnaa all crypto qofkii ku jira hadda khasaaro ku jira dhamaan waaye waligaa gaar haddaa